Ooh la la de. maxaad kala socotaa qisada jacaylka ee Lil Balil iyo gabadhan cusub ee cadaanka ah? Ma ogtahay in King CK ka caawiyay Lil Balil sidii gabadhan uu ku heli lahaa? goormee ayuu arooskoodu dhacayaa? aawise xaaskiisii hore Lil Balil ee Zaynab iyo cunugiisii uu jeclaa? Oh baba noqday baba noqday baba baba oh baba noqday baba noqday baba noqday baba noqday baba baba noqday amusabe. balse marka hore She calls me Lil Balil بحجم Scandinavia. Every time I toss my face I push my voice that's my mind, that's my mind. kadib 3 sano oo fankiisu si xawaare leh ku socday sanadii 2015 waxay isguursadeen xaaskiisa Zaynab. waxa uu sheegay isla markiiba guud ahaanba inuu iska dhaafay muusig iyo wax fan la xiriiraba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنا أقول ليل بليل مجا أنا ويا صلاة محمد علي كنا مجا ليل بليل بدون وينها دم أنت كو هذا شعب صومالي وحوجي سينا يا ميوزك أودن يفن أودن من السكناف. واحد نقضي من فاميلي الله أو وانقول سدي الحمد لله رب العالمين سيدا أدون كنا وبدأ أوجي هاي waxaan rabaa hadda kadib inaan usoo jeesto familkeyga iyo nolosheeda kale iyo sida familkeyga mustaqbalkiisa aan kusoo dhisa lahaa. 3 sano kadib ayuu Lil Balil fanka ku soo laabtay. waxa uu soo qaaday hees shaki weyn dhalisay taa oo magaceedu ahaa Safar. Hanu jira qaarad kale misna jifa saarir kale ina talo farxad wale qorriga xiran. Oh baby waan soo socda safar baan ku soo jira suuradaada inaan arko ayaan sida u soo mara safar baan. su'aalaha inta badan dadku isweydiinayaan ayaa u badnaay waa maxay sababta ku soo celisay fanka Lil Balil? waayo qofka uu u qaaday heesta Safar maadaama xaaskiisii ay wadanka gudihiisa isla joogeen? balse jawaabta dhabta ee su'aalahan ayaa ah in Lil Balil uu heestan u qaaday xaaskiisa cusub ee hadda la nool yahay ee Lafia Nakatura. waxa isla markaa isweydiinaysaa waa maxay sababta ku kaliftay Lil Balil in uu gabar cadaan guursado asagoo oo haysta gabar Soomaali ah oo waliba cunug u haysa? ragga Soomaaliyeed waxa lagu xantaa in intooda badan ay dumarka lacag ku raacaan, balse Lil Balil hore ayuu hees uga qaaday oo uu leeyahay qalbigayga mani jeebkayga mani maskaxdayda mani aqligayga mani jeebkayga mani nasi mani nakasana mani heta si mani kufa mani waxaan wata mani jeebkayga mani maskaxdayda mani. su'aasha kale ugu badan ee dadku isweydiinayaan ayaa ah sidee isku barteen Lil Balil iyo gabadhan cadaanka ah? haddaba aniga ayaa ku faahfaahinayay si fiican u dhageyso. Lafia Nakatura oo u dhalatay wadanka Austria iyo Lil Balil waxay iska barteen barta caanka ee baraha bulshada ee dhalinyaradu aad ku isticmaalaan ee loo yaqaano Instagram-ka, maadaama Lil Balil luqadda Soomaaliga ay u dheereed inuu ku hadlo luqadda Englishka, sidoo kale gabadha Lafia ay ku hadlaysay luqadda Austria oo wadanka u dhalata ah iyo luqadda Englishka. wada sheekaysi dheer kadib Lil iyo Lafia Nakatura way isfahmeen maadaama ay ku wada sheekaysan jireen luqadda Englishka oo labadooduba ay taf ku ahaayeen. balse dhibaatada ugu badan oo soo wajahaysa ayaa waxay ahayd inay kala joogaan laba wadan oo aad u kala fog, haddana aysan suurtagal ahayn in mid kale u yimaado maadaama Lil Balil uusan haysan baasaboor oo ku tago wadanka Austria, sidoo kale gabadhaas aysan suurtagal ahayn inay Afrika timaado. balse Lil Balil wuxuu go'aan ku qaatay inuu Lafia u tago meesha doonto kala dhacdo ama sirca doonaha u maray. Lil Balil soo iska jooga magaalada Nairobi ayaa maalmaha kamid ah waxa loo sheegay inuu magaalada joogo King CK oo ah YouTuber caan ah oo magaalada Nairobi u yimid in uu show ku qabsado, balse uusan markaas haysan cid garab ku siisa maadaama uusan ahayn CK fanaan laakiin uu ahaa kaliya YouTuber sida uu doonayay ahayd inuu show qabsado. Lil Balil waxa uu u tagay CK waxa uu sheegay inuu ka caawinayo inuu qabsado show maadaama uu yahay nin fanaan ah wadankaana jooga sharcina kale, sidoo kalena uu ka rabay inuu ka caawiyo asaguna wadankiisa maadaama jacaylkiisu ay jirtay wadanka Austria. Lil Balil King CK wuxuu u sameeyay wax kasta oo uu jeclaa
waxa uuna garab weyn ku siiyey inuu qabsado show aad iyo aad u qurux badan. laakiin CK isla markii showgu dhamaaday wuxuu si degdeg ugu laabtay wadanka Austria oo uu dhalasho ka haystay halkaana uu deganay. Lil Balil markii uu CK laabtay waxa uu sheegay in uu jecel yahay gabar wadankaas joogta, waxa uuna ka codsaday inuu ka caawiyo qaabkii ay isku heli lahaayeen asaga iyo gabadhaas. Kinga CK maadaama uu ahaa nin amaal lagu lahay, waxa uu go'aansaday inuu saaxiibkiisa caawiyo oona falankeeda qabto si oday oo ku keeni lahaay wadanka Austria. CK wuu soo laabtay, waxa uu yimid Kenya, waxa ayna ka wada sheekaysteen qaabka ugu fudud lagu wadi karo Lil Balil oo lagu geey karo qurbaha gaar ahaan Austria. waxay isla dejiyeen inuu jaaliyada Europe uu uga dhameeyo in uu Lil Balil halkan yimaado oo uu shooyo ku qabsado si uu aakhirka u aado Austria. Kingi CK way u fududaatay inuu wada Lil Balil oo qurbaha geeyo, waxa aana mar qura la wada ogaaday in Lil Balil oo ka baxay Nairobi oo CK raacay iyadoo aysan jirin faahfaahin hore oo sii bixiyay oo ah inuu aadi doono Europe. isla markii uu Europe tagay waxa uu sheegay in uu qabsan doono showyo kuwa oo ay ka wada tumi doonaan asaga iyo Kingi CK. waa la qabtay showyada intoodii badnaay oo dhowr wadan ay kasoo kala qabsadeen, walow markii dambe oo CK soo aaday xagga iyo Malaysia. Lil Balilna oo iska sii wata showyadiisa oo showgii ugu dambeeyay uu kusoo qabsayay wadanka Germany. adiga aakhirkii waxa uu kusoo laabtay Lil Balil wadanka Austria oo ay joogto jacaylkiisii oo waqtiga dheer sugayay oo uu dhibka badan u soo maray la kulankeeda. isla markii waxa la arkay social media gaar ahaan barta TikTok asagoo oo soo dhigaya sawiraanta iyo fiidiyoyo oo la duubayo xaaskiisa cusub u dhalatay wadanka Austria oo diinteeda aniga hadda aan caday karin oo dadka qaar inta badan dadku waxay dhahayaan waa qof islaam ah oo muslim ah, laakiin aniga ma caday karo sababtoo ah waxaan arkay Lil Balil asagoo oo faatixada u meerinaya xaaskiisa. marka inay islaam tahay in kale aniga runta ma sheegi karo, waayo dadka islaamka ah waa salaada waa tukadaan waana ay yaqaanaan faatixada iyo ugu yaraan qofku inta uu salaada ku tukan karo. Baby, Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Rahim. Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Maliki. Yawmiddin. Yawmiddin. Masha Allah. I love you. I love you. si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa Lil Balil inuu dhigto arooskii qarniga maadaama xaaskiisan cusub ay ka dhalatay qoys lacag leh. lama hubo xaaskiisii hore inay kala tageen Lil Balil, ciddii sheegta inay kala tageen ama soo mala awaashana waa qof dambawday, sababtoo ah ma jirto meel Lil Balil ku cadeeyay inay kala tageen xaaskiisii hore. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeenii guud ahaan ku aadan barnaamijkan. sidoo kale wixii talo iyo tusaale ah waad nala wadaagi kartaa. waad mahadsantihiin dhammaan daawadayaasheena Barbaris Media. Ooh la la de. caawa dumashadin cambuule iyo caano ee ku casheene sharciga ka yaala habeenka ku xigana waxa waaye soor iyo caanaa la siinaya kadibna muufaa la siinaya islid macsaro saas waaye. Welcome to family dhaha.